wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa sheegaya in saaka ay xasiloon tahay magaalada Makalle oo gelinkii dambe ee shalay ay ka dhacday xaalad kala wareega oo kelisa. militariga dalka Itoobiya iyo maamulka ku meel gaarka ee gobolka Tigray dalka Itoobiya ayaa 8 bilood kadib gabi ahaanba ka baxay magaalada Makalle xarunta ismaamulka Tigray. intaasi kadib waxaa si nabadgelyo ah magaalada kula wareegay cutubyo ka tirsan jabhadda TPLF u dhaqaaqda dadka Tigrayga, waxaana wararku sheegayaan in halkaasi uusan ka dhicin wax iska horimaad ah oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda dhexe ee Itoobiya oo ku sugnaa magaalada ay jabhadda soo gashay. wararku waxay tilmaamayaan in ilaa iyo shalay gelinkii dambe iyo xalay ay magaalada ay ka dhacayeen dabaaldegyo iyo barnaamijyo taageerayaasha TPLF ay ku soo dhaweynayeen jabhadooda. wakaaladaha wararka caalamiga ah ayaa waxay soo tabinayaan in maamulka ku meel gaarka ah ee dawladda Itoobiya ay u magacowday gobolka Tigray uu ku dhawaaqay xabad joojin ka hirgasha gobolkaasi. intaasi kadib ay wararku sheegayaan in dawladda dhexe ee federaalka Itoobiya ay taageertay soo jeedinta xabad joojinta oo dalbaday maamulka ay u magacowday gobolkaasi, waxaana jira warar kala duwan oo ku saabsan sababta keentay in ciidamada federaalka ay si fudud uga baxaan gobolkaasi oo ay kula wareegeen dagaalo culus oo sababay dhimashada kumanaan qof, qaxa dad badan oo rayid ah, burbur hantiyeed iyo arrimo kale oo isu geyntoodu horseeday tacadiyo ka dhan ah bani'aadanimada iyo masiibooyin kala duwan oo aan tiro koobnayn. warka xabad joojinta Makalle ayaa ugu horeyn waxa xaqiijisay warbaahinta taageerta dawladda dhexe ee Itoobiya. wakaalada wararka ee Associated Press ayaa iyaduna sheegtay in dawladdu ay si iskeed ah ugu dhawaaqday xabad joojinta degdega ah. wakaalada wararka ee AFP ayaa sidoo kale waxa ay tabisay in maamulkii ay dawladda Itoobiya u magacowday gobolka Tigray ay ka baxeen magaalada Makalle caasimada gobolka Tigray, iyadoo dhinaca kalena ciidamo la baxay xoogaga difaaca Tigray ay dagaal aan kula wareegeen magaaladaasi. afayeenka TPLF Getachew Reda ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Reuters in ay gacanta ku dhigeen gabi ahaanba magaalada Makalle. dawladda Itoobiya ayaa dhinaceeda sheegtay in xabad joojintu ay socon doonto ilaa dhamaadka xilliga beer falashada, waxaana sheegtay in ujeedada xabad joojintu ay tahay in beeralaydu ay helaan fursad ay ku qotaan dhulkooda, waxayna ku amartay dhammaan hay'adaha federaalka in loo hoggaansamo xabad joojintaas oo la fuliyo. dagaalka u dhaxeeya ciidamada dawladda Itoobiya iyo kuwa Tigray ayaa bilowday bishii November ee sanadkii hore kadib markii ciidamada maamulka Tigraygu ay weerareen taliska qaybta waqooyi ee ciidamada federaalka Itoobiya oo saldhigiisu yahay gobolka Tigray. intii markaas ka dambeysay waxaa gobolkaasi ka bilowday dagaalo culus oo u dhaxeeya dawladda Itoobiya iyo Tigray, kuwaas oo sababay dhibaatooyin waaweyn ilaa iyo haddana aan laga haynin tirakoob rasmi ah. hay'adaha xuquuqda aadanaha qaarkood ayaa horay dhowr goor waxa ay u baahiyeen warbixin ay ku sheegayeen in xadgudubyo ka baxsan xuquuqda aadanaha ay geysteen ciidamada Itoobiya iyo kuwa taageeraya Eritrea. hase yeeshee Itoobiya iyo Eritrea waxa ay beeniyeen eedeymahaasi loo jeediyay oo dhan. dhinaca kale war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in dhacdooyinkii dhawaan ka dhacay gobolka Tigray ee Itoobiya ay yihiin kuwa aad looga xanuunsado. qoraalka xogayaha waxa lagu sheegay in dhacdooyinkani ay cadeynayaan in uusan jirin xal militari oo dhibaatooyinkaasi lagu soo afjari karo. xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu kala sheegay in uu la hadlay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uuna ku rajawan yahay in la joojiyo dagaalka ka socda gobolka Tigray. wuxuu tilmaamay in aan laga maarmi karin in la badbaadiyo dadka rayidka ah lana gaarsiiyo gargaar bini'aadanimo iyo in la helo xal waara oo horseeda xasilooni siyaasadeed oo ka hirgasha guud ahaanba Itoobiya, gaar ahaan gobolka Tigray. waxaa iyaguna jira warar hoose oo sheegaya in tallaabadani ay ka dhalatay dadaalo qarsoodi ah oo muddaba loogu kala dabqaadayay dawladda dhexe ee Itoobiya iyo dhaqdhaqaaqa TPLF. wararkaasi waxa ay sheegayaan in dhexdhexaadintaasi ay ka qayb qaateen dhinacyo badan oo qaarkood ay kala gooni yihiin kuwana ay wada socdaan. hogaamiyaasha maamulka loo magacaabay gobolka Tigray, siyaasiyiin ka soo kala jeeda Tigray iyo maamulada kale ee Itoobiya, dalal Afrikaan ah iyo kuwa ka kala tirsan wadamada reer galbeedka ayay wararku sheegayaan in ay ka qayb qaateen xabad joojinta degdega ah ee ka hirgashay gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. waxaa iyaguna jira warar kala duwan oo siyaalo kala duwan u dhigaya wajiga cusub ee uu galay gobolka Tigray oo ku dhawaad hal sano ay ka socdeen colaado sokeeye iyo dagaalo lagu hoobtay.
dowladda federaalka Itoobiya ayaan weli wax hadal oo rasmi ah ka soo saarin xaaladaasi cusub ee ka hirgashay halkaasi waxaase laga warsugayaa tallaabada xigta ka bixida dowladda Itoobiya magaalada Mekelle xarunta ismaamulka Tigreega wixii warar ay ka soo kordha xaaladda gobolka Tigreeg iyo guud ahaanba Itoobiya waxaad isla markaa ay dhacaanba kula socon doontaan wararkeena dambe haddii aad ku cusub tahay channelkan fadlan subscribe dabadeedna fura gambaleelka si aad ula socotid macluumaad badan oo aan kuu soo gudbin doono waana ku mahadsan tahay la socoshada wararkan